magaalada Hargeysa waxaa saaka kulan ballaaran ku yeeshay gudiyada ururada bulshada rayidka ah ee Somaliland waxaanay kulankooda diiradda ku saarayeen dib u dhac laga qabo in mar kale ay ku yimaadaan doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada. Gudoomiyaha dalada aan dawliga ahayn ee Sonsaf Anwar Cabdiraxmaan Warsame oo u hadlayay ururada aan dawliga ahayn ayaa sheegay in kulankii gudda doorashooyinka iyo golaha guurta Somaliland dhex maray uu badka soo dhigay sida aanay marna dalka doorasho uga qabsoomeyn waxaanay ku baaqeen in la gaadhay waqtigii ay iscasili lahaayeen gudda doorashooyinka Somaliland waxaana uu yiri noo muuqatay in ay fashilantay waqtigii doorashada la qaban lahaa doorashadii Somaliland ka dhici lahaydna ay mustaqbalkeedii gudmado ku dhacay waxaanu soo jeedin lahayn ama ay noola muuqataa haddii aad garsooro tahay oo aad cid u garsooreyso haddii dhinac ka midii kugu kalsoonaan waayay ama ay dhammaantoodba aad ka weyday wada shaqayn guddiga doorashooyinka waxaan u soo jeedinaynaa inaanay waqtiga ka luminin ummadda iyo qaranka ee ay guddiga doorashooyinku baneeyaan kuraasta ay ku fadhiyaan si ay doorasho u qabsoonto haddii ay dhacdo inay doorasho waddanka ka dhici weydo waxaa suurtagal ah amaba muxuu ahaa inoo cad in stability-gii waddanka ama degenaanshiga xasiloonidii waddanka horumarkii waddanka jiritaankii muxuu ahaa ummadnimo inuu baaba'ayo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland madax meel la taabto ka sarreysa ma jirto dalku isagu maanta doortay isaga maanta masiirkii ummadda iyo taladii dalka loo daba fadhiya madaxweynaha waxaanu leenahay madaxweyne bahashii adiga ku fadhida adaa laga doonaya inaad go'aan qaadato adaa laga doonaya inaad doorashadii aad ballan qaaday waqtigii aad campaign ku jirtay inaad maanta qabato adaa laga rabaa madaxweyne cid kale oo dalka lagu hadlaynayo ama la oranayo maanta ciddaas u maqan ama ciddaas jawaab laga sugaya ma jirtay bahashu miiskaaga saarantay sidaas oo ay tahay haddii aan nahay ururadii bulshada madaxweyne waxaanu baaq dheer iyo cod dheerba kugu soo jeedinaynaa in bulshadii Somaliland maanta adiga ay ku eegayso Maxamed Aadan Ismaaciil Maxamed Jiglan shabakada caalamiga ee Haruna News Hargeysa.